السلام عليكم صحابتي كسو نقشو ناكس ماني واه معاد يوتيوب جانكا داوانيسنا waa معاد hadii tamka kuulisa soo baqato youtube jankayga subscribe sar maanta waxaan noo hayaa muuqaal cusub muuqaalkiina cusub wuxuu ku saabsan yahay youtube balse muuqaalkii tan gudaha u gelin waxaan kala gelinayaa muddo dheer waan ka maqnaa oo aan muuqaal soo gelin balse hadii wixii ka dambeeyay muuqaalada waxay noqon doonaan taxane oo muuqaal isla joog ayaan soo deyn doonaa waxaa jira youtube sharciyo liya ama youtube farsamooyin badan oo lagu soo kordhiyay waxaan ka hadlayaa youtube application waxaa jira farsamooyin badan oo cusub oo update ah aan ka dabageeyay 5 farsamo ugu muhiimsan ayaa ku sheegi doonaa waxaan filayaa inaad ka faa'iideysan doontid farsamada koowaad ayaa waxay tahay in youtube aad u sheegi karto xilliga aad doonayso inaad seexato si uu fariin kugu soo diro markii la gaaro xilliga aad seexanayso sida marka youtube usoo furto ama aad usoo gasho waxaad taabanaysaa qaybta ugu koreysa ee taleefankaaga dhanka midig profile-kaaga ayaa taabanaysaa markii aad taabato kadib waxaad taabanaysaa settings kadib waxaad taabanaysaa general qodobka labaad eeg waxaa ku qoran ama qoraalka labaad remind me when it's bedtime isoo xasuusi markii la gaaro xilliga sariirta ama xilliga hurdada waxaa aniga hurdada ku programiyay oo youtube fariin oo isoo diri doonaa markii la gaaro 5 saac bar habeenimo oo dhihi doonaa waxaa la gaaray 5 saac bar habeenimo ee seexo ilaa 1 saac hadii la gaaro oo subaxnimo markaas fariinta joojin doona laakiin 5 saac bar habeenimo ilaa 1 saac oo yacni subaxnimo inta u dhaxayso wuxuu isoo diri doonaa fariin ah in la joogo xilliga aan seexanay seexo iliya ilaa aniga aan u sheego inuu faraha iga qaado aan dhaho dismiss okay ay saacada rabtaa gashan kartaa start time inta ku qoran 5 saac bar habeenimo aan ku programsaday adiga waxa rabtaa ku programsan kartaa saacada meesha ku dhufanaysaa kadib 5 saac 45 daqiiqo oo ujeedaa pm waxa waaye xilliga dambe waaye maalinkii xilliga dambe ilaa habeenkii xilliga hore ani hadda 5 saac 45 daqiiqo ka dhigi karaa 6 saac habeenimo darabana markaas waxa leeyahay 6 saac habeenimo dhag iisoo diray yacni fariin ah in xilliga seexanay ay tahay dhag xilliga aan rabo subaxdii yacni hurdadii uu egtahan oo ku programinaysaa waxa ka dhigi kartaa 12 oo subaxnimo inta u dhaxayso 6 saac habeenimo ilaa 12 oo subaxnimo wuxuu ku soo diri doonaa fariin ah inaad seexanayso wuxuu ku leeyahay seexo waxaan filayaa inaad fahanteen fariinta labaad ee ah inaad ogaato aad ogin ayaa waxay tahay in sidoo kale youtube aad u sheegi karto xilliga aad doonayso inaad break qaadato si markii la gaaro xilliga aad doonayso inaad break qaadato uu kugu soo diro fariin oo ku dhaho break qaado sidan farsamada labaad waxay la mid tahay sidii farsamadii koowaad sidoo kale waxaa ku dhufanaysaa profile-ka kore kadib waxaa ku sii dhufanaysaa settings kadib waxaa ku dhufanaysaa general qoraalka koowaad waxaad arkaysaa inay ku qoran tahay remind me to take a break isoo xasuusi aad u qaato break ama nasiino markii aad ku dhufato waxaa arkaysaa hours and minutes meeshan waxa waa saacadaha dhankan waxa waa daqiiqada marka hours waxa gelinaysaa saacada intan daqiiqada sidee okay tusaale 1 saac marka youtube ku jirto waxa rabtaa inaad qaadatid 10 daqiiqo oo break ah ama nasiino ah youtube soo gashay 1 saac oo kaamil ah wax daawanaysaa 10 daqiiqo break rabtaa inaad qaadato okay inta waxa gelinaysaa 1 saac say u jidda 1 saac ku qoran intani 10 minutes 1 saac da youtube ku dhex jiro 10 daqiiqo siina haddii aan rabo 2 saac markii aan ku jiro youtube inuu siiyo 30 daqiiqo break waa kaas 2 saac ka dhiga intan waxa ka dhiga 30 oo daqiiqo 2 saac marka youtube ku jiro oo aan youtube video le daawanayo 2 saacadood oo kaamil ah fariin oo soo diri doona wuxuu leeyahay 30 daqiiqo break soo qaado inay 2 saac youtube ku jirtay haddii aan 1 saac ku jiro aan yacni rabo inaad 10 daqiiqo break qaatana sida data in sheego kale wuxuu ku leeyahay 1 saac ayaa ku jirta youtube ee 10 daqiiqo break soo qaado waxaan filayaa inaad fahanteen farsamada saddexaad ay tahay inaad ogaato oo aad weyn ayaa waxay tahay in youtube video-ga aad daawanayso aad gudbin karto 10 second sidoo kale aad soo celin karto 10 second balse ma ogta 10 second ee ku programsan inaad ka yareyn karto sidoo kale aad ka badin karto sidan habta waxaad taabanaysaan profile-ka sare ama sawirka sare kadib waxaad taabanaysaa settings kadib waxaad taabanaysaa general kadib waxaad jidda meeshan inay ku qoran tahay double tap to seek waxaad taabanaysaa meeshaas waxaa ku programsan 10 second oo aad gudbin karto sidoo kale aad soo celin karto laakiin ujeedkiin wuxuu ahaa in ay basan karno ama yareyn karno haddii ay yareynayno 5 ayaa ka yar ama 5 ilbiriqsi ama 5 second oo kaliya haddii aan rabno waxaa ka dhigi karnaa 30 hadda video haddii aan ku dhufano video alaala videogii aan rabnin markaa ku dhufano kadib 30 second oo gudbaa saa ujeedid sax 30 second oo soo laabanaya okay haddana meeshanigii waxaan ka dhigaynaa 5 second okay isla videoga hadda ku dhufo loo jeeda 5 second ayuu gudbayaa ama
soo laabanaya. waxaan filaya inaad fahanteen. farsamada afraad ayaa waxay tahay in speedka muuqaalka aad daawanayso aad kordhin karto. tusaale waxaad daawanaysaa muuqaal dheer, sidoo kale qofka ka hadlayana waa qof caajis badan ama qof hadalka si fiican aan u dhehaynin ama aan u boorsiinaynin. waxaad rabtaa inaad boorsiiso sidee? sidan waxaan ku dhufanaynaa video. markii video aan ku dhufanno waxaa taabanaynaa saddexda dhibic ee kore. kadib waxaa jira meesha inay ku qoran tahay playback speed. waxa ay saaran normal saaran. haddii aad rabto speedka inaad kordhiso waxaa 1.25 1.5 1.75 normal. wixii ka hooseeya speedku zaa'ida, wixii ka koreeyana speedku uu hoos u soconaa. okay ku dhufana 1.75. oo jida warka uu buusinaya way buusinaysaa. okay speedka dana waa yaray kartaa 0.25 caajis. waxaan filaya inaad fahanteen. farsamada shanaad oo ah farsamadii ugu dambeysay, sidoo kale ah farsamada ugu muhiimsan ee aan kuu sheegi doono, midaas waxtar u leh indhahaaga ama araggaaga. ma ogtahay in YouTube markii aad soo gasho leerka kasoo baxaya ama iftiinka cad ee kasoo baxaya aad u bedeli karto mid madow? tusaale mobilka markii aad daawanayso iftiinkiisa ama brightnesskiisa waad yareyn kartaa, sidoo kale waad badin kartaa. isla sidaas oo kale YouTube wuxuu leeyahay brightnesskiisa inaad ka dhigi karto black ama white. black wuxuu u roon yahay indhaha, waayo iftiin cad kama soo baxaya shaashada, indhahana kaagama dhacayaan. sidee u samayn kartaa? sidan waxaan taabanaynaa sawirka sare ama profile sare. kadib waxaan taabanaynaa settings. kadib waxaan taabanaynaa general meesha ku qoran tahay. hadda meeshan ay ku qoran tahay appearance ama qoraalka saddexaad. markaa taabano waxaa jeednaa inuu noo soo qoray light theme, waana cadaan ama kalarka white-ka. dark theme na waa madow sida loo baahan yahay waaye, oo yacni hadda aan sheegayo arag u ron. use device theme na waa mobilka qaabka uu yahay. haddii mobilkaaga uu cad yahay cadaan uu noqonaya, hadduu madow yahay madow noqonaya. marba mobilkaaga ayuu la jaan qaadaya. laakiin dark theme ayaa indhaha u ron saa hore idinkugu sheegay. sidaan ayaana wanaagsan. indhaha kaama dilayo, mobilkii dhan madow ay isku bedelayaa, iftiin zaa'idna kama soo baxayo. shantaasi farsamo aan la soo wadaagay waxay aan shanta farsamo aan u arko inay yihiin kuwooda ugu muhiimsan ee ku saabsan YouTube. waxaan filayaa in muuqaalkan wax badan ka faa'iiday. waxaan ku rajaynayaa caafimaad bashbashi barwaaqo meel walbo adduunka ka joogto. tan iyo muuqaalka xiinta kulmi doona waxaan leeyahay sidaas iyo amaana Allah.